Assalaamu calaykum dawadal kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadii ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. Casharkan maanta waa qeybtii labaad ee simple present tense, gaar ahaan qeybta question formka ama qaabka ama habka su'aalaha loogu weydiiyo tenniska markii la isticmaalayo. Qeybtii koowaad ee tenniska waxaan kusoo qaadanay statement ama markii qofka hadal caadi ah uu ku hadlayo, ama markii tennisida markii laga waxa loo qeybiyo hadalka waa hadal iska caadi ah iyo hadal su'aal ah iyo hadal diidmo ah. Marka hadalka diidmada ah waa negative, hadalka questionka ahna waa ama su'aalahana waa markii qofka su'aal aad weydiinayso, iyo hadal iska furan oo maaragtay iska caadi ah oo qofka xaaladiisa maaragtay uu ku warramayo ama ka warbixinayo ama waxyaabo kale oo badan. Marka waa hadal aan su'aal ahayn ayaa la yiraahdaa marka statement. Qeybtan laakiin waa question form, marka waa habka question form waa habka su'aasha loogu weydiinayo markii la isticmaalayo tenniskan. Marka intaan guda galno waxaa muhiim ah, waxa uu leeyahay qaanuun ama wax la raaco ama sharci ama rules ayuu leeyahay marka tenniskan, gaar ahaan markii su'aasha lagu weydiinayo. Waxyaabaha ugu muhiimsan markii laga hadlayo su'aal weydiinta waxaa la isticmaalaa badanaa wax la yiraahdo pronouns. Marka waxaa muhiim ah inaad marka ugu horeyso aad fahansan tahay pronounska ama magacyada. Haddii aadan fahansaneyn magacyada, fadlan waxaa jira muuqaal aan horay ugu sameeyey pronounska. Waxaan isku dayayaa inaan linkiga hoose aan soo geliyo, marka waxaad ka heli kartaa linkiga hoose muuqaalka hadda kor aan ku sharaxayo pronounska. Marka magacyada waxaa loo kala qeybiyaa singular iyo plural. Marka ama si kale haddii aan u dhigno waa jamac iyo mufrad. Marka yani jamac iyo mufrad ayaa loo kala dhigaa. Marka aan akhrino labadan qaanuun ugu muhiimsan halkan ku qoran, waxa uu la yiri we use do and does. Waxaan isticmaalaynaa do iyo does ayaan isticmaalaynaa to make questions, si aan u sameyno su'aalo with the present simple. Markii aan joogno present simple, markii aan joogno waxa la yiri waxaan isticmaalaynaa do iyo does si aan su'aalo aan u sameyno. We use waxaan isticmaalaynaa does waxaan u isticmaalaynaa for the third person singular. Ereyga third person waxa yiraahdaa qofka aan joogin ee laga hadlaya, qofka aan goobta aan joogin ee laga hadlaya, sida asiga, iyada, ama iyada oo waxa aan nool aan ahayn. Marka waa third person ayaa la yiraahdaa. Marka goobta ma joogo laakiin waa laga hadlaya. Marka ma ahan qofka lala hadlaya iyo qofka hadlaya, laakiin waa qof laga hadlaya ee aan goobta aan joogin. Marka ayaa waxaa la yiri waxaa loo isticmaalaya does. Marka waxaa la yiri waxaa loo isticmaalaa si kale haddii aan u dhigno waxyaabaha aan jamac aan ahayn ama tirooyinka mufradka ah. Waxay noqon karaan dadka, waxay noqon karaan lab iyo dhadi, wuxuu noqon karaa sidoo kale maaragtay xayawaanada, waxay noqon karaan waxyaabaha noolaha ah. Marka waxaa la yiri waa she iyo he iyo it ayaa lagu soo gaabiyey. Marka third personka waa pronounska hadda aan ka hadlayay. Marka pronounskan oo ah she iyo he iyo it waxaa la siinayaa marka does markii su'aasha la joogo. Markii su'aasha la joogo qeybta su'aal weydiinta markii la joogo. And waxaa la yiri do waxaa loo isticmaalayaa for the others, inta kale. Marka inta ka soo hartay ayaa waxaa loo isticmaalayaa do. Marka pronouska waa marka waa 7. Marka saddexdan marka laga soo tago afartii kale waxaa loo isticmaalayaa do ayaa loo isticmaalayaa. Marka we use waxaan kaloo isticmaalaynaa marka ayaa la yiri marka use waxaan isticmaalaynaa do iyo does. Waxaa sidoo kale aan la isticmaalaynaa mararka qaar do iyo does with question words. Su'aalaha wax lagu weydiiyo ayaan la isticmaalaynaa do iyo does si aan su'aal ugu weydiino. Marka question wordskana hadda kor waxaan ka sameeyey muuqaal, waxaan soo gelin doonaa linkiga hoose question wordska waxa loola jeedo. Marka hadda tusaale ayaa la soo qaatay question wordska aan la isticmaalaynaa do iyo does. Mararka qaar waxaa la yiri waxaa kamid ah where, what iyo when ayaa kamid ah. Marka question wordska kaliya intaan ma ahan way badan yihiin ilaa 7-8 ay gaarayaan.
marka iyadana linkiga ayaan soo gelinayaa muuqaalka hadda ka hor aan ka sameeyay. marka tusaale haddii aan qaadano examples with do iyo does, haddii tusaalooyin aan ka bixino habka loo isticmaalayo do iyo does, doda ayaa lagu horumaray. halkan waxaa la yidhi do you play the piano? piano ma ciyaartaa marka piano ma ciyaartaa ayaa la yidhi. where do you live? halkeed ku nooshahay marka where do you live? halkeed ku nooshahay. halkan waxaan ka arkaynaa marka tusaalaha koowaad haddii aan fiirino do you ayaa horeyda la keenay, waxaa lagu xijiyey pronounkii ama subjectigii sidaa doonto u dheh, play oo ficilkii ayaa lagu xijiyey the piano oo ah objectigii ayaa gadaal la geeyey. marka habkan ayaa loo dhisay. marka waxa ugu horeeya dodii markay jamca tahay ama markii ay tahay the third person of plural markii ay tahay waxaa la yidhi do you play the piano? piano miyaad ciyaartaa marka. where do you live? halkeed ku nooshahay. halkan waxaan ugu jeednaa question wordski in horey la geeyey kadibna lagu xijiyey do you oo ah ama dodii in lagu xijiyey. marka where do you live? halkeed ku nooshahay. does Jack play football? Jack ma ciyaara footballka. halkan waxaa ka muuqata marka Jack inuu yahay asiga inuu yahay marka ama inuu yahay mufrad inuu yahay ayaa halkaas ka muuqata marka. where does she come from? halkay iyada ka timid. do Rita and Angelina live in Manchester? Angelina iyo Rita gabadha la yiraahdo ma waxay ku nool yihiin marka Manchester ma ay ku nool yihiin. where do they work? halkay ay ka shaqeeyaan marka where do they work? halkay ay ka shaqeeyaan. marka waxaa muhiim ah tenniska waxa uu ku wanaagsan yahay waxaa ka mid ah inta badan isma bedelaan ficilada isma bedelaan inta badan sida marka tennisada kale intooda badan isma bedelaan. marka uu ku yahay ficilka sidii asalka ayaa lagu qaadanaya marka. halkan marka waxaan ku arkaynaa marka do iyo does oo lala isticmaalaya marka question wordski marka ereyaashi wax lagu su'aalayay ayaa la horumarinaya halkan marka. where do you come from? halkee ayaad ka timid. where do you come from? halkee ayaad ka timid. where do you live? halkeed ayaad ku nooshahay. what work do you do? shaqada ayaad qabataa. where do Ali and Fatima live? Ali iyo Fatima halkee ayay ku nool yihiin. where does Fatima do? Fatima maxay qabanaysaa. when does Aisha usually get up? Aisha inta badan goorma ayay soo kacdaa marka. had iyo jeer goorma ayay soo kacdaa marka. waxaa kaloo rabaa halkan inaan ku daro tenniska inta badan waxaa loo isticmaalaa sida guudba waxyaabo soo noqnoqda ama waxyaabo maalin waliba la sameeyo ayaa loo isticmaalaa. marka waxyaaba caadada ah ee qofku uu sameeyana inta badan waa loo isticmaalaa. marka waa tennis inta badan si zaid ama si xad dhaaf ah loo isticmaalo marka. halkan waxaan arkaynaa marka in question wordskii su'aalihii wax lagu weydiinayay maaragtay keligooda la isticmaali karo iyadoo do iyo does bal aan maaragtay halkaa la keenin in la isticmaali karo markii tenniskan la joogo. who lives in Mogadishu? muqdisho yaa ku nool marka. who lives in Mogadishu? muqdisho yaa ku nool. who plays football at the weekend? yaa football ciyaarayay weekendiga marka ama yaa ciyaaraya aan iraahdo halkaas sorry. who plays yaa ciyaaraya football footballka ama kubadda cagta yaa ciyaaraya at the weekend weekendiga ama fasax isbuuca yaa ciyaaraya marka footballka. who works at Medina Hospital? Medina Hospital yaa ka shaqeynaya marka. marka tenniskan sida guudba waxaan dhahnay inta badan waxaa loo isticmaalaa maaragtay wixii soo noqnoqda ayaa loo isticmaalaa. laakiin hadda waxaan qeexaynaa marka habka su'aalaha wax loogu weydiiyo. habka su'aalaha wax loogu weydiino waxaan dhahnay waxa ugu muhiimsan inuu qofka maskaxda uu ku hayo do iyo does oo ah labada ficil ee su'aalaha lagu weydiinayo iyo
magacyaalada sida ay u kala qaadanayaan ayaa muhiim ah. Marka waxa muhiim ah qofka inuu ogyahay intaan ama labadan sharci ugu horeysay aniga aan sheegnay oo ay kamid ahayd in duda la siinayo ama das la siinayo iraade third person singular wixii singular ah laakiin third person ah markii laga hadlayo singularka waa asiga ayada iyo ayada oo ah wixii aan nooleyn marka luqada ingiriisiga marka iyo sidoo kale waxaa jira third singular person oo ah you oo adiga ah iyo I oo aniga ah marka labada third person ma aha labada waa qofka hadlaya laakiin third person waxa la yiraahdaa qofka laga hadlayo marka qofkii laga hadlayo oo maartay third person ah meeshan waxa uu qaadanaya das laakiin inta ka soo hartayna waxa la siinayaa do ayaa su'aal looga dhigaya halka kuwa kalena das looga dhigayo sidoo kale waxa muhiim ah in do iyo das lala isticmaali karo question wordska iyo in iyadoo lala isticmaalin do iyo das in question wordska kaliya su'aal lagu weydiin karo ayaa iyana muhiim ah qofka inuu maskaxda ku hayo marka intaan cashar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.